laga yaabaa xaafadahan oo kale muddo ilaa bil laba bilood inaan la soo galin biyahaas fadhiya awgood. macnaha waxa sabab waxay tahay meeshan awalba looguma talagelin in la dego, marka wayba dhacday in la dego oo bulshadii wayba degtay, haddana waa kana bulshadii dhib kale kala kulmeen way adag tahay sida looga bixi lahaa. marka waxaan rajaynaynaa in isbedel uu imaan doono. muhiimadda fiidiyogan aan u sameynayno waxay tahay in lagu baraarugo sidii isbedel loogu keeni lahaa xaafadan si ay bulshadu ugu sii noolaato. intii aan socono xaafadan waxa raacde waxaan rabaa inaan maxaan uga duwanahay, muxuu xaafadan uga duwan tahay xaafadaha kale ee hore u soo marnay sida Hodan iyo Waaberi. xaafadan waxa raacde dhowr iyo 10 sano ka hor waxay ahayd meel aan la deganayn, macnaha dhul banaan u ahaa oo ay si kalena bulshada ay uga faa'iideysan jirtay magaalada. xaafadan waxay ahayd maxaan yiraahdaa meel biyaha ay fariistaan waqtiga roobka da'o, waxay ahayd meel ay biyaha fariistaan. biyaha badanaa waxay ka yimaadaan dhinaca galbeed ay ka yimaadaan magaalada. kadib biyaha magaalada markay soo gaaraan waxay fariisan jireen xaafadan hadda aan joogna ee Waxaraade. biyo fariisan camal ay ahaayeen. marka muddo kadib dhowr iyo 10 sano kadib bulshadii waxay sameeyeen dib ay u degeen oo macnaha magaalada laga sameeyay oo waxay sameeyeen dadkii inay degaan si ay meesha u magaaloodo. bilicda magaaladeena runtii ay soo kordhisay wax badan laga ogaaday, yani wax badan ay ku soo kordhisay. laakiin dhibaato kale ayadana timid roobka markuu da'o kale xilliyada hadda aan ku jirno roobaadka oo kale bulshadii xaafad magaaleysa meeshii waxay danta ku qasabtaa mar walba inay cararaan oo ay ka guuraan. maxaa yeelay waxa imaanaya daadadkii markay yimaadaan xaafadoodu toos u galaan daadkii. waxay ku qasban yihiin marka inay ka soo qaxaan oo ay xaafadaha kale magaalada ay yimaadaan. marka waxaan rabnaa xaafadan in wax badan ka ogaano, idinkan wax badan aan kaga iftiimiyo. marka waxaan jecelnahay inaan hore u galno si aan wax badan uga sii ogaano. markaya هذا مساجد يرى مولعة. مساجد كان دور اسبوع كور waxa laga yaabaa inaan soo gali jirin biyaha fadhiyo dhulkana waxa dareemay inuu yahay dhul qoyan. marka sidaa u fiirisid waa kana hadee xagan soo fiiray waxa dareemay inuu yahay ciidda inay tahay ciid qoyan. wajib wali biyihii way ka dhadhamayaan. marka xaafadan waxaan rabnaa inaan waxyaabo badan oo ajaa'ib ah ciidan hore u aragno inaan ka soo aragno. marka soo wada xaafadan oo markii ugu horeysay aniga oo aan imaado maxaa yeelay guudaan ka maqnaa magaalada oo dhan. marka ugu cusubay marka waxaan rabaa waxyaabo badan inaan ka soo ogaado si aan adinkana idinkaga sheego wax badan aad uga warhaysaan. biyaha labeentiisa waxaan u maleynayaa inaa ujeedaan labeenta biyaha gurigan darbigiisa toos ugu dhacay. marka hadda xaggaas oo kale biyaha toos u fadhiyo oo waxa waaye lama geli karo. qaybahaas oo dhan waxaan moodaa inaan la sii geli karin. marka waxaa laga yaabaa xaafadahan oo kale muddo ilaa bil laba bilood inaan la soo gelin biyahaas fadhiya awgood. macnaha waxa sabab waxay tahay meeshan awalba looguma talagelin in la dego, marka wayba dhacday in la dego oo bulshadii wayba degtay, haddana waa kana bulshadii dhib kale kala kulmeen way adag tahay sida looga bixi lahaa. marka waxaan rajaynaynaa in isbedel uu imaan doono. muhiimadda fiidiyogan aan u sameynayno waxay tahay in lagu baraarugo sidii isbedel loogu keeni lahaa xaafadan si ay bulshadu ugu sii noolaato. bulshada aad ay ugu dhiban tahay, bulshada aad iyo aad ay ugu dhiban tahay. waana muhiim inay bulshada hesho wax maxay yiraahdaa ay ku noolaan karaan ama dhul ay macnaha caadi ugu noolaan karaan ayagoona ka baqaynin inuu biyo u yimaado ama waxyaabo kale ay ka baqaan. ku soo dhawaada xaafadda Waxaraade. deegaan ahaan markii loo eego xaafadan waa xaafad ku habboon in lagu noolaado lagu dego. deegaan ahaan macnaha loo dego jawigeeda oo jawi degan oo ku wanaagsan faamiliyada markii laga reebo dhibaatadaas biyaha oo
haysata mooye. hadda xaafadan oo kale waxaa moodaa in laga maqan yahay maxaa yeelay agagaarkiisa oo dhan waxaa yaala biyo oo dhinac walbaba waxaa ka yaala biyo marka way adag tahay qofka ama familiga inay ku soo laabtaan si fudud ay ugu soo laabtaan si ay noloshooda caadiga ugu noolaadaan. hadda waa tanaa waddadii caadiga ah mari lahaa ma jirto waddaa mar hadda meesha ma lahan biyihii gooyey marka waxaan ku qasbannahay inaan dib u laabanno. hadda waddadaana ku socday saatoos waddadaan ugu socday biyahana iga helay waxaan ku qasbanahay inaan dhinaca ka soo wareego saa dhinacaas u mara kadibna waddada dhinacaas kale aan uga dhaco marka nabada xaggas waa la mari karaa maa xagga waa in lasoo qooroteeya marka bal fikirkiina waxaad ka qabtaan waxaan jeclaa inaad commentigana kala wadaagtaan channelka daaweynsiin waa Hajir Pro fadlan haddaan ugu cusub tahay nagu soo biir adigoona idina ku qasbaynin haddaa horena la joogtay thank you wamaasatahay. alright ugu dambayn waxaan soo gaarnay qeybo isla xaafadda ka tirsan laakiin jawigeeda aad u degan yahay waana wax biyo lahayn macnaha. okay qaybtan waxay ka tirsan tahay isla xaafadda Waxaraade marka ayada jawigeeda uu degan yahay oo biyihii way ka baxeen. waxaan ku dareemay inuu ayagan biyo fadhiyeen oo u jeedinaan jeclahay labeenta ka muuqato derbiyada guriga marka ayada waxaasan usii badnayn biyaha way fadhiyeen laakiin si wanaag hadda biyihii waxaa moodaa inay ka dhammaadeen. laakiin sidoo kale asaasiga magaalada aan xaafadan ugu dhamaystiran yahay sidaan filayo korontadii iyo internetkii waa isla wada socdaan. sidoo kale waxaan ka maqnayn biyaha bulshada ku nooshahay. waxyaabaha kale cajaa'ibka waxay tahay dhib walba waana haysto biyo walba waa nagu socdo anaga nolosheena waa wadanaynaa. taas waa hal qabsiga ay leedahay xaafadan waxaa kuu tusaalaa inay dhismaheeda wadato nolosheeda caadigaane ay hore u wadato iyadoon u joojinaynin wax walba u yimaado. isaan u socday nasiib wanaag waxaan ku nimid dukaan yar oo dukaan xaafadeed ah marka waxaan isku dayaynaa inaad biyo ka cabno xoogaa dhuuntaana qalashay. muddaan soo soconay xaafadan muddaan ku soo soconay wax badanaan ka soo ogaanay waxaan jeclahay inaan intaas kusoo gabagabaysmi doono macnaha intaas inaan kusoo dhammayn doono xaafadan. haddii ay jirto wax su-aala ama waa isleedahay waxaan jeclaan lahaa in aan wax ka sii ogaado oo ku saabsan xaafadan ama xaafadihii kale hore aan soo marnay ee magaalada waxaan jeclaha commentiga hoos inaad noogu soo sheegto si aan dib aan ugu fiirino. video lamid intaan kulmi doono waxaan rajeynaynaa inaad nabad ahaan doontaan wax badane waan iska sii ogaani doono marka aan wada joogno waxaan leeyahay noli kulanti. السلام عليكم ساكا السلام عليكم قلبتي قرشينا waxa waa inaan tagno xaafadda Waxaraade. صاحب وغيرته ما نقدر يسيد يا أخي
صراحة waxaan wadanaa microphone aan wadanaa moogtaa okay dhib ma lahan maxaa la yidhahdaa sug maxaa la yidhahdaa isha waxaan rabnaa inta adiga waxaan rabaa inaad socotid anigana aan socdo waa istaagsan tahay maanta waxaan intii aan socno xaafadan waxaa raacde waxaan rabaa inaan